السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكيم بمالك السوق جوكتان يسول بجنا الكيجا بشر بردره official ولا سعتان كسر هذا مقال كلا عصب دراسة عجيب أيان الدين سوق جد من دونا دراسة أيانا هاي مد عجيبة تاسو كسابسن دمر كأول وقاعد إن يجعلين رجع دارير حتى بمحاكين واشيك الله يابله aan gudo galno daraasadan iyo waxyaabaha lagu ogaaday iyo dumarka dunidu maxay u jeceliin arintani aad bay arintani cajiib u tahay oo ay wadamo badan ugu jirtaa daraasad la sameeyay oo in muddo ah ay waday jaamacad ku taala wadanka Korea ayaa ugu dambeyn la soo gabagabeeyay kuwaas oo lagu baarayay su'aal ahayd sida ay ugu qanacsiin dumarka ragga dhaadheer in ay nacab yihiin iyo inay jecel yihiin daraasada ayaa kaliya ku qotantay in dumarka la weydiinayay ma jeceshiin ragga dhaadheer mise waa nacabtiin waaye maxay ku jawaabeen khubradan oo ka shaqeynayay in muddo ah hawshan ayaa lagu sheegay isla markaana waxa ay tabaxeen khubradani in ay ogaadeen in inta hore dumarku waxay sanayaan ragga dhaadheer halka ay hadhowna nacaan ragga dhaadheer waxaana ay sheegeen in khubradani ay in muddo ah oo 18 sano ah ay ku qanci karaan ragga dhaadheer shirkadan oo daraasadan ka waday wadamo kala duwan haddaba waxaa la ogaaday in muddo ah markii laga tago haasawaha iyo jaceylka iyo jilitaanka markii mustaqbalkii la guda galo in gibi ahaanba ragga dhaadheer la naco oo ay meesha ka baxdo 18 sano markii waxoogaa la isla socdo jawi macaan la qaato laakiin guurka kadib ragga waa la nacaa maadaama xilligii haasawaha iyo xaragooda meesha ay ka baxayso waayahay aan sii wadno waxaana ay leedahay warbixinta wadamo kala duwan oo caalamka ah tijaabo ayaana lagu sameeyay dumar tiro badan oo ku nool wadanka Indonesia kuwaas oo tiro ahaan gaaraya ilaa 7850 dumar ah oo xaasas ah waxaana dumarkaasi la weydiiyay sida ay gabadha u aragto nimanka dhaadheer iyo sida ay u nacab yihiin waxaana ay dumarkaasi natiijadii ku sheegeen in marka hore ay dumarka dhererka nimanka ay xiiseeyaan kadibna uu lumo xiisaha in muddo ah inta hore way jeceliin laakiin kadib xiisaha waa uu lumayaa khubarada daraasadan waxa ay sheegeen in ay ilaa iyo hadda jawaabta su'aasha maxay dumarku u jecel yihiin nimanka dhaadheer aanu ilaa iyo hadda jawaabtii saxda ah aanu haynin waxaana la warinayaa in dumarka ay jawaab saxan aysan ka dhibin maxay dumarka u jecel yihiin nimanka iyagu ka dhaadheer dherer ahaan iyagu ka dheer dumarka inta badan waxa ay door bidaan in ninka uu dheeraado laakiin gabadha ay gaabnaato laakiin gabadha haddii ay dheeraato oo ninka uu gaabnaado taasi qeyrul macquul ma soconayso macnaha taasi ma soconayso mana ahan mid iyadu hadda cajiib ah ninka ayaa markaas hoos galaya malaha waxaana ay keentay in ay ku kalsoonaadaan nimankaasi hal ujeedo kaliya ay daraasadan laga ogaaday hal jawaab maxay dumarku u jecel yihiin ragga ka dhaadheer waxaa lagu ogaaday in ay tahay in ay ku kalsoon yihiin oo ay ku helaan ammaano farxad kalgacal iyo diirimaad iyo in gacan seefa iyo nin ku habboon oo wax walba ka difaaci kara oo hanan kara oo difaaci kara oo wax walba siin kara inay yihiin ammaan badan xagga ragga dhaadheer ku mutaasanayaan marka kalsoonidaas ay ku qabaan xilliga la socda iyo farxadda iyo dadka attractionka ay dabcan u sameynayaan dadka marka ay socdaan oo kale sida loogu mashquulayo iyo indhaha sida u soo jiidanayaan kalsoonidaas oo kaliya ay dumarka ka helaan ayaa leeyahay nimanka dhaadheer waxaana ay sheegeen in ay bilaabi doonaan daraasad ka jawaabaysa su'aashaas daraasadii hore ee la sameeyay iyaga oo la sheegay in dumarka caalamka 48.9% ay jecel yihiin ragga ay guursanayaan in ay noqdaan niman dhaadheer kuwaas oo ay iyagu door bidaan marka laga eego nimanka gaagaaban waayahay nimanka gaagaaban waxa leeyahay waa ay ka door bidayaan dabcan oo ma rabaan oo tixgelin uma hayaan markaan oo kale ayaa leeyahay oo xilligaas ayay jeceliyeen marka
ragga dhaadheer waa ay ku taagan tahay waxaa leeyahay dumarka caalamka 48.9% ahaan waxa ay jecel yihiin in ay guursadaan xilliga guurka iyo mustaqbalka nin ay ku haasaawi karaan magaalada ku maraki karaan ku xaragoon karaan oo qurux badan oo soo jiidasho leh oo dhisan oo isteel ah oo taagan laakiin nin gaaban oo qurbac ah dabcan ma soconaysay leeyihiin in ka soo gaagaaban laftigooda aanu dhib lahayn laakiin daraasadu sida ay leedahay ayaynu ka tixraacinay aad baad u maasantiin daraasado kale oo cajiib ah waan soo saari doonaa fadlan subscribe like oo comment sheekooyinkii warbixinada channelkayga aan soo gelino kaliya hal arin ayaana lagu ogaaday oo ah dumarka in ay ragga dhaadheer ku jecel yihiin qura arinta kalsoonida iyo in markii ay guur rabaan ragga dhaadheer ay xushaan xulashadooda ay qayb muhiim ah iyo darajo weyn iyo point muhiim ah ay ka tahay laftigooda saaxiibada ila socda channelkayga ka soo jawaaba haddii aad haysan qodobo kale oo ah bal dumarka guud ahaan maxay ku jecel yihiin ragga dhaadheer kaliya daraasadan waxay sheegtay jawaabta saxda ah oo ay daraasadan ku baadgoobayaan in ay waayeen laakiin mar kale ay ku celin doonaan si ay feedback kale iyagu ay helaan laakiin kaliya hal arin ayaa la ogaado oo ah 48.9% in dumarka ay jecel yihiin xilliga guurka inay guursadaan rag dhaadheer iyaga oo tolman ah waxaana la warinayaa in ay ku dareemaan kalsooni ayay ku dareemayaan alle xilliga xaragada haasaawaha attractionka iyo sidoo kale in ay dabcan meelo badan oo muhiim iyo farxad ay ka dareemaan oo ay ku socon karaan oo quruxda iyo qaab walba hadda ay qurxinayso way intaasaan ku soo gabagabinayaa saaxiibayaal warbixinada joogta inoo noqon doonaan mar walba aan idin soo gelin doonaa waa inoo bilaabatay channelkana waa la shidi doonaa dhankiina nakashida aad baad u mahadsantiin nabadgelyo saaxiibayaal Here we go.